maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda kiiska Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ah oo kufsi iyo dil loogu geystay gaalkacyo. Fadhiga maxkamadda ayaana ahaa mid furan oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha ehelada marxuumadda iyo cidda eedeysanayaasha. maxkamadda rafcaanka ayaa ayday xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda darajada koobaad ay riday 12 bishii May kaasi oo ku dhacay eedeysanayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige. markay u cadaatay rafcaan le Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame sida sambalka in sambaladii laga qaaday ee DNA-ga 100% waafaqsan yahay kuwii laga qaaday marxuumad Caaisha Ilyas Aadan iyo sambaladii kalaba. sidoo kale waxa uu cadaatay maxkamadda in sawirada la soo bandhigay ee uu inkiray dhamaantood uu leeyahay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame. markay u cadaatay maxkamadda in Cabdishakuur Maxamed Dige in sambaladii laga qaaday DNA-ga 100% waafaqay kuwii laga qaaday marxuumad Caaisha Ilyas Aadan iyo sambaladii kalaba. sidoo kale waxa uu cadaatay maxkamadda in Cabdishakuur Maxamed Dige uu lacag ku ururiyay gabdho si loogu aaso marxuumadda qabrina diyaariyay. maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal iyadoo xukunkeeda ku saleynaysa shariicada islaamka waxay xukuntay sidan. maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. maxkamaddu waxay ayday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sumadiisu tahay MDK gaana 963 2019 iyo oo soo baxay 12 bishii shanaad 2019 cuskin suurada al-Maa'ida aayadda 33 suurada Ashura aayadda 4aad suurada al-Israa aayadda 33. xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Caaisha Ilyas Aadan ay cadaalad heshay halka qareenadii u doodayay eedeysanayaashu ay ka gaabsadeen inay warbaahinta la hadlaan. waa Ilaahay mahadi Caaisha cadaalad way heshay. maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad. maxkamadda racfaanka waxay ayday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal ayaa sheegtay in kiiskan uu ka furan yahay cabasho 30 biri ah. qareenada u doodaya eedeysanayaashu waxay rafcaan u qaateen maxkamadda sare oo go'aanka madambaysta ka gaari doonta kiiskan. dhamaadkii bishii Febraayo sanadkan ayay ahayd markii Caaisha Ilyas Aadan laga afduubay meelaan ka fogeyn gurigooda oo ku yaalay gaalkacyo taasi oo meedkeeda markii dambe laga helay isla gaalkacyo. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Garowe.